xildhibaanada baarlamaanka galmudug maamulka degmada Guraceel saraakiisha ciidamada galmudug ugaaska odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka bahda saxaafadda dhammaantiin intii aan ka tagay qof waliba magaciisa iyo masabkiisa oo meesha ku joogo ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga mahad celiyo aad iyo aad ugu mahad celiyo dadka shacabka ka yimid deegaanada kala gedisan ee galmudug maantay ilaa aeroboorka aan ka soo degay ilaa aan ka imid howlka shirkaanu ka socday ee degmada Guraceel jidadka tubnaa aeroboorka tubnaa haddana kuraasta intiqaadi weyda bannaanka taagan ayadoo weliba qorax kulayl uu jiro aad iyo aad aan idinku mahad celinayaa sidoo kale u mahad celinayaa madaxa xukuumadda galmudug Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo maamulkiisa soo dhaweyntii iyo qabanqaabadii runtii ay ku taabageliyeen inaan deegaankan soo gaaro oo bulshadayda aan la qaybsado dareenkayga iyo waxqabadkayga intaba ayagana aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa intaas kadib safarkayga aniga 3 qodob ayuu salka ku hayaa kan koobaad wuxuu yahay dib u heshiisiin guud iyo mid gaar ahaaneed mid guud oo reer galmuduga oo maamulkooda iyo waxa ka dhiman iyo dadka reer galmudug sidii loo tabantaabi lahaa wax la isku duwi lahaa dib u heshiisiinna lagu sameey lahaa iyo mid gaar ahaaneed oo aniga iyo culimada waxaan rajaynaynaa insha Allah dib u heshiisiintaas furaheedii aeroboorku ka soo bilowday hadda howlku maraa inta kalena waa sii dhamaystirayna ilaahay inuu guuleeyo qodobka labaadna wuxuu yahay gogol xaarid iyo tabantaabin gogashii ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ku baaqay ee ahayd in shir lagu qabto meeshan oo beesha xildhibaanada aanu nahay ee golayaasha baarlamaanka aan ku matalno isku yimaadaan inaan soo ajiibay oo horudhac aanu ahay wafdiyo kalena iga dambeeyaan oo imaan doonaan insha Allah haddii Allah wada loo ogolaado qodobka saddexaadna wuxuu yahay deegaanadan galmudug oo golaha shacabka aan ku matalayo mashaariic laga fuliyo tuulooyin hoos yimaada degmooyinka cidaanu ay degan tahay ee Guraceel Balanballe iyo Dhuusamareeb sidii aan u furi lahaa oo ayadana bulshada reer galmudug ee deegaankan joogta ayadana aanu la qaybsan lahaa wixii qabsoomay muddadii xildhibaanka aanu ahaa waa in la joogi doona insha Allah maalmahan haddii Allah wada loo ogolaado kulamo badan ayaa jiri doona oo maamulka iyo madaxda galmudug aan isku arki doono dhammaan qaybaha bulshada waa arki doona sidoo kale ayaantan waa in la joogaa waqtiga oo kulul daraadiis ma jecli runtii ilaa maanta oo dhan ayaa quraxda taagneedeen inaan idinku sii dheereeyo waxaan jeclaan lahaa salaantii iyo marxabayntii aan idinkaga waday dadkii aan ka imid deegaankan ka soo jeeday madax iyo maamul iyo shacab lahaa idiina soo socday inaan idin soo gaarsiiyo soo dhaweyntan qiimaha badanna waxaan rajaynayaa dad badan inay dhiirigelin u noqon doonto inay ku soo dhawaadaan deegaankooda oo gogashii ugaaska meeshan ka iclaamiyay sidii ahayd ay ku qabsoontaa haddii Allah wada loo ogolaado anigana inta aan joogo insha Allah sidii aad hore uga shaqaynaydeen aan idinkala sii shaqayn doonaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inay guuleysato aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh